ma la gaaray waqtigii la aqoonsan lahaa Somaliland oo 34 sanadood ee ugu dambeeyay gobonnimo u diri lahayd ma Soomaaliya ayay madaxbannaanideedu ku xidhan tahay mise dunida kale waxa ay ka heli kartaa aqoonsi la isku raacsan yahay in ka badan 30 wadan ayaa go'aamiyay inay Somaliland ka saaraan go'doonka ay ku jirtay 30 sanadood ee ugu dambeeyay haddaba mahana qaadi doona ictiraafka ay Somaliland filayso bisha December ee fooday nagu soo haysa maxaynu se ka ogaan karnaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo wadamada ku midaysan kacdoonkan warbixinteenna ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi Somaliland ayaa noqotay dayaxa geeska Afrika iyo mawjado doonis shacab ka shidaal qaadanaya oo aanay cidina hortaagi karin iyadoo ay 34 sanadood ka soo wareegeen in ka badan xilligii lagu go'aamiyay magaalada Burco inay xorriyadeeda dib ula soo noqoto oo ay ku 960kii kula midowday Soomaaliya inkastoo aanay jirin midnimo sharci oo dhex martay Hargeysa iyo Muqdisho balse wali waxa ku muransan madaxbannaanideeda umana doonayso si walaalnimo iyo gacaltooyo ah ujeedada ugu weynse waxa laga wadi waayay maadaama aanay iyadu horumar haynin iyo haab dawladeed inay cagaha qabato halka horumarku uu ka jiro sanadii ugu dambeysay adduunku waxa uu fahmayay maalinba maalinta ay ka dambayso inaan la isku sii hayn karin labadan gobol ee midoobay 1960kii diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland waxa ay noqotay mid qaaradaha isaga talowda Muqdisho way ka dagaalamaysaa albaab kasta oo u furma Somaliland waxana ay ku dadaalaysaa sidii ay uga xidhi lahayd muddadaasi 34 sanadood ku simanna waxa ay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho danahoodii iyo dadkii ay hogaaminayeen kaga mashquuleen sidii ay lugaha u qaban lahaayeen Somaliland iyo sidii ay u noqoteen jamhuuriyad madaxbannaanideeda la isku raacsan yahay inkastoo shacabkeedu ay go'aanka gacanta ku hayaan oo xataa siyaasiyiinta hogaaminaya ama si ay doortaan aanay awood badan ku lahayn talada rasmiga ah rabitaanka bulshada reer Somaliland oo ah kan ugu awoodda badan ee suurageliyay in muddo 34 sanadood ah ay Somaliland ku noqoto goob lagaga soo hirto geeska Afrika oo ka muuqdeer wadamada aqoonsiga caalamiga ah haysta laga soo bilaabo sanadkii 2020kiina rajadii ay Soomaaliya ku qabtay inay Somaliland lugaha hayn karayso ayaa soo yaraanaysay maalinba maalinta ay ka dambaysana waxa ay u sii dhawaanaysay markii ay xaqiijin lahayd mar kale gobonnimo la isku raacsan yahay Somaliland sida uu sheegay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirana waxa la filayaa sanadkan dabayaaqoodkiisa inay wadamo tiro badan cod midaysan ugu dhawaaqaan madaxbannaanida Somaliland oo ah mid la isku raacsan yahay xulafada reer galbeedka ayaana wadamadaasi horkacaya iyadoo wadanka Mareykanka ay ka socoto shaqo ballaaran oo dhinaca diblomaasiyadda ah taasi oo Somaliland lagu horumarinayo codkeeda ay ku doonayso aqoonsi caalami ah inay hesho wadamo tiro badan ayaana hadda safka hore kaga jira dardargelinta iyo doonista shacabka reer Somaliland sidii looga dhabayn lahaa sanadka 2025 dabayaaqoodkiisa inkastoo dhamaystirka qorshahani uu u dhici karo bilowga sanadka 2026 balse golayaasha sharci dejinta ayaa qalinka ku duugaya bisha December horaanteeda aqoonsiga Somaliland xeerkaasi oo horiyay muddo laba dhinac ayaana hadda ay Somaliland shaqo xoogan ka wadaa oo dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda dhinaca koowaad ayaa ah wadamada Afrika sidii ay dhexdooda uga samaysan lahayd taageero xoogan iyadoo wadamo tiro badan oo codkooda hoos u dhigaya haatan balse taageersan inay Somaliland madaxbannaanideedu noqoto mid aan lagu muransanayn ayaa jira kuwaasi oo ay ugu horeeyaan Kenya iyo Ethiopia labadan wadan oo midna deris la yahay Soomaaliya midna deris la yahay Somaliland ayaa maslaxadooda ka dhex arkaya inay noqoto dawlad la isku raacsan yahay jamhuuriyadda Somaliland oo go'aanka shacabka 1991kii ay qaateen la rumeeyo halka uu kacdoonka kalena ka socdo wadamada reer galbeedka oo ay horkacayaan Mareykanka Israa'iil Australia Ingiriiska Jarmalka Faransiiska iyo Imaaraadka Carabta waxa jira wadamo kale oo tiro badan oo wali magacooda aan kor loo qaadin balse qayb ka ah kacdoonka jamhuuriyadda Somaliland inay noqoto dawlad calankeedu uu ka babado jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxa wali ah su'aalo taagan oo waqtigu ka jawaabi doono Somaliland ma guuleysanaysaa rajadeeda ah inay bisha December ee sanadkan dabayaaqoodkiisa hesho aqoonsi caalami mise wali dhabar adayg iyo halgan ayaa u dhiman shacabka Somaliland qubrada diblomaasiyadda iyo xiriirka wadamada kala noqonaya ku takhasusay ayaa sheegay maadaama oo ay Somaliland iyo Soomaaliya laba wadan ahaayeen oo aanay kala noqonaynin in aanu aqoonsiga Somaliland ku xidhnayn Soomaaliya ee haddii ay hesho 30 wadan in ka badan oo aqoonsada ay isku raacayaan dhammaanba wadamada dunidu madaxbannaanida jamhuuriyadda Somaliland